Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Saxan Saxo. Waa mar kale iyo daawada guriga taala ama daawada guriga laga helo. Maanta casharkeenu waxa weeyaan waxa loo yaqaano constipationka ama calool istaaga. Haddaba waa maxay calool istaagu? Waxaanu eegi doonaa dhowr su'aalood oo ah waa maxay calool istaagu, maxaa lagu gartaa ama waa maxay astaamihiisu iyo daawadiisa ama maxaa lagu daaweeyaa. Lambar 1, calool istaagu waa xaalad uu qofku dareemo marka ay saxaradiisu adkaato ama uu suuliga tagi waayo. Micnaha marka uu suuliga ka maqnaado muddo dheer ama aanu taginba, haddii uu tagana uu dhigo saxaro adag. Astaamaha lagu garto calool istaaga. Lambar 1, saxaro dhiig wadata. Lambar 2, lalaba ama yelaaligo ama waxa loo yaqaano nausea. Lambar 3, calool xanuun. Micnaha caloosha oo xanuunta balse ogow ma socoto oo caloosha wax saxaray kama imanayaan. Lambar 4, amateed xumo ama amateedka oo xumaada amateedka oo qofka ka xumaada. Waayo waxyaabaha daba sababa maxaa ka mid ah waxyaabaha calool istaaga sababa? Cunto bedelid. Qofka oo bedelo cunooyinkii uu cuni jiray. Tusaale ahaan haddii uu cuni jiray cunto wadaniya, tusaale ahaan sida badarka, galleyda, digirta, cunooyinka cuni jiray oo uu ku bedesho cunooyinka la soo dhoofiyo sida baastada ama bariiska ama waxyaabaha way dhici kartaa inay calooshu istaagto. Lambar 2, biyo cabid la'aan. Qofka oo yareeya ama aan cabin biyaha. Biyo cabid la'aantu ma keento oo keliya calool istaaga balse waxay keentaa cudurro badan. Cunto miiqle oo aan la cunin, tusaale ahaan in qofku aanu cunto wadaniya cuninbaba waxay keeni kartaa in qofkii calooshu istaagto. Waayo cuntada miiqale ama wadaniga leh waxay soo quftaa cuntada aan digestive-ka ama aan la dheefshiidin. Cuntada aan la dheefshiidin ay sida galleyda iyo badarka ama garowga iyo waxyaabahaas. Daawada calool istaaga. Daawada calool istaaga. Lambar 1, micnaha waxa weeyaan daawooyinka guriga laga helo. Daawada guriga laga helo weeyaan. Lambar 1, biyo badan cab. Cun khudaar badan sida liin macaanta, muuska iyo dabacasaha. Khudaar badan oo aad cuntid shamaamka, timirta, cuno badan ama khudaar badan oo aad cuntid waxay ka hortagi kartaa ama ay ka daaweyn kartaa calool istaaga. Cun cuntada wadaniga sida galleyda, badarka, garowga ama digirta. Tani waa ta ugu muhiimsan. Ha ka degdegin inta ay saxaradu soo socoto. Micnaha marka aad suuliga ku jirto ha ka soo degdegin adigoon hawshaadii soo dhammaysan ee iska sug. Suuligu waa baytul raaxa, marka waxaa loo baahan yahay inaad iskaga nafisto oo aad iskaga sugto. Intaas ayaan idiin soo gudbiyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ha mogaanin like, share and subscribe the channel.